الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إلهي وحن كبريين توفيق النوافجيو إلهي وحن كبريا وحن مقالك يا أركا يوسف خيره وقوأسي وهذا الكيا أولا تعزيني واحد دمي شيخ محمد الخير السيو باقني وباق نبضين وشير أن وفرسنا سيد الشيخ شيء ما أنتو سنينة ليش عمر محمود يا بحر السماء والله حليل الدبات هذا يدلك يداوع إلهي قدري أن الله بحنا كثيرا دولك إلهي كواب وريدتك ودرس كذا بضبطي أن مسلك لنا حق بحيه كو حمسلك لنا إن حبد الجوجيو إذا ما لنا لك قالوا سيد وجودك كبدن laba si ay taasi u hirgasho in qolo waliba deegaankeedii asaasiga ahaa ee loo yaqaanay ay ku noqoto si ay looga hortago in ay dib u bilaabanto shaqaaqadii iyo dagaalkii iyo dhibaatadii iyo shidadii waxaan u soo jeedinaynaa baaq waxaan isla garanay inaanu baaq u soo jeedino in culimada deegaanku ay u istaagaan arrintan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa baa muxkama isaga wuxuu xalliya ugu fiican inay culimadu u istaagaan oo iska xilsaaraan sidii hawlihii hore ee deegaanka ka dhacay bay isaga xilsaareen ay u galeen ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo baaqkaa lamida waxaanu u diraynaa jaaliyadaha ay ka soo jeedaan labada beelood inay hawshaasi isleeg ugu istaagaan waxgarad kugu istaagaan hawsha ma garanaysa ay sidii ugu degdega badan ee loo dhammayn karana aan qayb ka noqdaan akhiiran waxaanu isla garanay in aanu magacaawno guddi si joogta oo wada shaqeeya dadka gudahana la shaqeeya dadka heshiiska gelaya la shaqeeya sidii heshiisku ugu taabaqgeli lahaa iyo ma garanaysa sidii dhibaatada loo dhammayn lahaa oo ay usoo noqotay kala shaqeeya dadka gudaha ku jira oo labada darafa إن شاء الله وحنا بدي قاس الله صحيحين دوران ذاتك هوشة قعنت قبض دون إيش يصير قعنت كوهية إلهي وحن كبرين خاتمة لنا وافقيه وحن مهد بلارن علينا يا مهد قال علينا يا إلهي سبحانه وتعالى سامك ورشيد كذب ذاتك الصوت قاي هوشة أبادلي إعجاز كذا لها وجزاكم الله خيرا وزير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد waxaan la qabaa inta ay soo jeediyeen Sheekh Maxamed iyo Sheekh Cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay inay halkaasi ku dhan tahay waxaan ku xoojinayaa boqorada labada beelood garaad jaamac garaad cali iyo islaam bashir isna cabdille siday ugu dhex jireen hawshan oo qayb uga qaadanayeen inay dhammaystiraan wixii ka dhiman ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu intaas ku joojiyo deegaankaas iyo dadka isdhalayna nabad iyo nolol iyo walaalnimo iyo isdhalasho iyo isla xiriir wixii ka dhaxayn jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celiyo waxaan ugu dambayn ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda ehelkaaba inaan cidna aysan ka qayb qaadan dagaalkaas inay buunbuuliyaan inay dadka isku shidaan inay siyaasadeeyaan inay dhib kala geystaan waxaan rajaynayaa inay baaqayaga dhageystaan والله على ما نقول وكيل وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan soo sheegaynaa baaqaas odayaasha soo jeediyeen baan ku raacsanahay waxaa loo baahan yahay in dadka walaalaha ee wada dhashay ee meesha ku wada nool saabtiga iyo sheediga iyo xididka wax walbaba intaas hadda maanta taagan inay halkan ku soo afjaraan inayna sii wadin sidaasaanu baranay inta dibadda joogta iyo inta gudaha ku jirtana waxaanu ku codsanaynaa inay baaqaa nala qaataan oo ay arrintaas ay nala fuliyaan sidaas iyo nabadgelyo
madashaan ama gobashaan maanta aan fadhino oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda ama waxgaradka ka soo jeeda beelaha walaalaha ah dhibaatada iyo shaqaaqadu ku dhex maraysa hawdka oo ah beesha Bahrar Same iyo beesha Cumar Maxamuud oo kulamo isdaba jooga ku lahaa muddo magaalada Nairobi ayaa maantay oo ay tahay maalin talaado ah waxay ku shireen magaalada Nairobi waxayna soo saareen maanta oo isniin ah ay ku shireen magaalada Nairobi oo ay ka soo saareen arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo ah xasilinta nabadeynta joojinta shaqaaqada iyo dhibaatada labadaas beelood oo walaalaha ah oo isku degaanka ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala isla dejiyey oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay dad qaraabo ah oo dhibaatadoodu ay tahay maanta ama geeridooda iyo dhaawacooda kaa dhibay ay tahay in ay soo saareen ama ay qaateen go-aamo muhiim oo usoo jeedinayaan dadkoodii gudaha ku jiray kow waxaan labada beeloodba ay dirayaan tacsi tiiraanye leh ay u dirayaan dadkii halkaa ku waxyeeloobay hadday geeri tahay hadday dhaawac tahay waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu u boogdhayo Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan uga baryaynaa inuu intaa uga ekaysiiyo waxaa midigteeda fadhiya